$250 million COVID-era plot to defraud a program that was supposed to feed hungry children. But the woman they describe as the mastermind is not Somalian. We spoke with Amy Bach from her Minnesota jail cell. To what extent do you feel responsible for what's going on? I feel guilt about every piece of this. I wish more than anything that I could go back and change things. waxa ugu dambeyn la soo qabtay sharciga lala tiigsaday waliba ayada oo xabsiga ku jirto waraysi laga soo qaaday iyo waxa ay ka waday arimahan Soomaalida ee faraha u gelisay naagtii loo yaqaanay Soomaalida oo la baxday Sweet Gary Amy oo magaceeda saxda ahna la dhaho Amy Bok marka haweeneydan ayaa waxa lagu eedeeyay 250 milyan oo dollarka Mareykanka ah programkii Feeding Our Future in la fraud gareeyo ama la dhaco ay ayada mas'uulka ahayd ama mastermind oo ilaa hadda aysan dawladda soo hadal qaadin Nick Shirley ninkii dhahayo cunsuriga ahaa uusan waxba ka soo gudbin haweeneydan maadaama ay cadaan tahay macnaha ay sheegay arimahani ayada ay madaxweyne ka ahayd Soomaalida ee oo la baxday Sweet Gary Amy sida aad ogeedeen buraanburkii iyo wixii loo qaadahayay 2020 xilligii COVID-ka programkan loogu talagalay in caruuraha lagu quudiyo ayada ay ka ahayd mastermind-kii ama maskaxdii lacagahan in la dhaco ka dambeysay oo Soomaalida u keentay la wadaagtay Soomaalidana ooga dhigtay wax macnaha ay sheegay dawladda ka yimid sida ognahay waxa wax lagu farxa ah in ugu dambeyn haweeneyda Soomaalida arimahani faraha u gelisay in ay kala shaqeyn doonto ugu sheekaysay Soomaalida ama systemkan in aysan wax dhiba uga imaanaynin oo ay ka shaqeeyaan macnaha ay sheegay shaqooyinka u soo bandhigtay oo Soomaalidana ay kala shaqeynaysay ayaga oo u isticmaalayso systemka dawladda wixii ay ku hoos qarinaysay oo dhanna banaanka la soo dhigay iyo dhaqaalahani qaabka ay u isticmaashay ayada oo TV-ga Carol 11 ay ugu tageen xabsiga kana soo wareysteen arimaha iyo sida wax u dhaceen balse waxa wax lagu farxaa sidoo kale in arimahani oo dhan ay qiratay in ay ayada ka dambeysay oo Soomaalida ay ayada u keentay systemkan iyo waxan oo dhan waxa sidoo kale wax lagu farxaa in maanta Soomaalida kaliya aysan arintan ku koobneen TV kale oo Minnesota ka howlgalo ay imaadeen oo arimahani si sax ah u macnaha ugu dhabagalahayo ama ugu kuurgalahayo ayada oo macnaha ay sheegay markii hore la ishilmaamsiinayay ama ay ismoogeysiinayeen Nick Shirley iyo odaygii la socday ee cunsuriyiinta ahaa Soomaalida kaliya u socday dheekeerada toos u abaarahayay waxa ilaa hadda dadka Ameerikaanka ay isweydiinayaan sababta islaanta mastermind-ka ah ee maskaxdii ka dambeysay in lacagahani ay lumaan Soomaalida u gacan gelisay macnaha Soomaalida in aysan dambi sidaas ah ku sii yeelanaynin ayaa sidoo kale xaqiiq noqotay maadaama ayada ay ka dambeysay waxan oo dhan hadeerna ay xabsi ku jirto balse aan wali la xukumin long term prison ayada oo la saadaalinayo in nolosheeda inta ka dhiman xabsi daa'im lagu xukumi doono oo ka duwan dadka kale oo dhan oo ayaga dhowr sano la xukumay marka haweeneyda COVID-19 ka xilligii markii laga soo bilaabo ee Soomaalida ay iskugu yeertay programkan u soo bandhigtay Safari Hotel wixii lagu haystay waa ayada daraadeed programkan food-ka ah ama cuntada lagu quudinayo caruurta ee Feeding Our Future ayada ayaa macnaha ay sheegay Safari Hotel siisay contractigan in ay kala shaqeeyaan scandalkanna faraha u gelisay bal ila daawaraysiga laga soo qaaday sida looga warbixiyay haweeneydan. The Trump administration in part has justified the immigration crackdown in Minnesota by citing fraud involving members of the state's Somali community. Prosecutors have charged 78 people in the biggest scheme, a $250 million COVID-era plot to defraud a program that was supposed to feed hungry children. But the woman they describe as the mastermind is not Somalian. waxaa la sheegay in lacagaha ku maqan ilaa 250 milyan ay yihiin programkan Feeding Our Future sidoo kale waxaa la sheegay in Soomaalida wax been abuur ah lagu ceersanayay oo qofka waxan oo dhan ka dambeeyay oo madaxweynaha mastermind-ka ahaa oo ilaa iyo hadda ciidina tabin oo ciidina soo bandhigin cunsuriyiintii oo dhan ay ka warwareeganayeen ayaa la soo qarxiyay inay tahay Amy Bok ama naagta ay ula baxday Soomaalida Sweet Gary Amy ayada oo ku amaanahayo arimahaasi ayaga ah waxa la yaab ah qofkii dhannaa ee waxan agaasimahayay ama madaxweynaha ka ahaa ee programkan 250 milyan ah ee la luusaday ayba tahayba haweeney aanan Soomaali ahayn ama white American ah ayaa sidoo kale fajac noqon. She gave an exclusive interview behind bars to our Jonah Kaplan. As tensions spiked over the administration's immigration crackdown,
We spoke with Amy Bach from her Minnesota jail cell. To what extent do you feel responsible for what's going on? I feel guilt about every piece of this. I wish more than anything that I could go back and change things. marka sida arkaysaan way qiratay waxa la weydiiyay macnaha ay sheegay maxaad ka leedahay arimahani lagu soo eedeeyay iyo sida ay wax u dhaceen waxan oo dhan waa sax oo way qiratay sida aad arkaysaanba waan qirtay ay leedahay waliba waxaan fili lahaa ama jeclaan lahaa in dib la ii celiyo si arimahani oo dhan aan u saxo. Fraud has been the pretext for the administration's Minnesota pressure campaign, and prosecutors say there is no bigger fraudster than Amy Bach. Amy Bach masterminded a $250 million fraud scheme. Her now infamous nonprofit, Feeding Our Future, signed up restaurant qof in ay xilkaasi qaado inay waxan oo dhan ayada ka dambeysay ayada ooga madaxsanaa ma uusan jirin ama qof maanta dambigan Soomaalida lagu haysto dhabarka saaran lahayd in ay ayada tahay ayaa sidoo kale la sheegaya qof ooga dambiilaysan dambigan asaga ah ee la fraud gareey programkan Feeding Our Future ee lacagaha la dhacay inay ayada mas'uul ka tahay oo cid kasta oo Soomaali ah oo lagu soo eedeeyay ayada ka sii daran tahay balse waxa yaaba waxa intaasi oo dhan looga aamusnaa haweeneydan bartaasi ayaa waxa kaga cadaanaysa sidoo kale in cunsuriyeen iyo dadka Afrikaanka ah ama the people of color ama dadka Soomaalida ah in aad looga soo horjeedo oo ayaga macnaha ay sheegay waxyaabo macnaha ay sheegay ka baxsan oo xadgudub ah lagula dhaqbahayo ayada oo mastermind-kii la ilaaway oo hadda macnaha ay sheegay la ogaanayo inay waxan oo dhan ayada ka dambeysay. and caterers, many from Minnesota's large Somali community, to receive taxpayer money for feeding hungry kids. The community deserves this. The children need this. While Bach's attorney provided this video showing stacks of food, prosecutors say Bach and the businesses she recruited stole millions, spending it on luxury cars, real estate ventures, and vacations. waxaa sidoo kale la soo qarxiyay in ay real estate ka dhisatay in hadda baa kow la ogaanaya Soomaalida wixii lagu haystay macnaha bilaash ay Soomaali qof Soomaali ah oo fraud scheme kan lagu haystay oo ilaa hadda guryo inuu ka dhistay in uu baabuur luxury ah ka gatay iyo waxyaabo noocaas ah ilaa hadda ma jirto marka haweeneydan waxa la soo bandhigay guri ay ka dhisatay oo macnaha luxury ah baabuur luxury ah in macnaha sheegay iskala kicisay businessye ay ka furatay iyo dukaamo iyo waliba in ay macnaha sheegay arintani ay ka taajirtay balse Soomaalida intii yareed ee Soomaalida ay siisay xagee lagu arkay Donald Trump cunsurinimo ka weyn ma jirto in Soomaalida uu ku shaabadeeyay ayada oo hadda la ogaanayo naagtan 250 milyan iyo waliba baabuurka luxury-ga ah ee haysato iyo gurigeeda iyo wixii oo dhan la soo bandhigay iyo jewelries in ay ku gadatay Soomaalida in lagu shaabadeeyo ayada oo aysan macquul ahayn lacag 2 bilyan oo dollarka Mareykanka oo Soomaalida lagu eedeeyay in aysan macquul ahayn in lacagahaasi ay Soomaali kaligeed qaadato. 2019, Feeding Our Future submitted $3 million worth of meal claims. 2 years later, it submitted nearly $200 million. All of a sudden, you're cutting $200 million worth of checks. How do you not see that as major red flags and keep this going? We relied on the state. We told the state this site is going to operate at this address, this day, this time, and this number of children. The state would then tell us that's approved. In text messages revealed in waa been abuur waxa ay sameynayso oo macnaha ay sheegay waxay leedahay waana laga warhayay state-ka way ka warhayeen ayaga ayaan u diri jirnay lacagahana sidaas ay ku iman jireen oo heer federaal ilaa heer state ay u soo gudbi jirtay waxa fadeexad iyo scandal ah in Donald Trump uu sheegay 2 bilyan oo dollarka Mareykanka hadda waa 2B in Soomaalida ay ku maqan tahay ayada oo lacagtii oo dhan ay noqotay 250 milyan lacagta programkan Feeding Our Future marka waa gap aad u weyn sida aad arkaysaan 250 milyan iyo waliba 2 bilyan wax isku dhow ma aha waliba Soomaalida kaligood uu ku eedeeyay in 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ay qaateen lacagtaasi oo aan aqli gal ahayn in Soomaalida ay ku maqnaato marka waxa farxad ah iyo macnaha ay sheegay yaab iyo amakaag iyo fajac intuba ah in haweeneydan intaas oo dhan la qarinayay si macnaha sheegay Soomaalida kaligood loogu shaabadeeyo waxaana farxad ah in newska ama meesha media madaxa banaan ee Mareykanka waliba gobolka Minnesota ee Carolina ay soo bandhigaan arimahani in ay been abuur ahaayeen oo macnaha qofkii mastermind-ka ahaa xabsiga ugu tageen oo ay ku soo wareysteen hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikrigaaga ah qaybta commentiga noogu wadaag muuqaalka like noo saar hadii aad ugu cusub tahay channel ku soo biiro subscribe noo saar waana mahadsantiin.